السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري saaxiibayaal waxaynu markaa qaadan doonaa wax la yaqaano form validation iyo wax la yaqaano input group. Okay, so form validation waa taqaana yani haddeertaa markii aa wax qorin iyo haddaa wax qoraba intaba submit baa la dhahayaa formka waa la dirayaa halkaas sare fiiri oo markaa yani right now halkaas sare waxaa arkaysaa hadda budget click markaas iyo halkaas waxbaa wareegtanayo yani micnaheedu waxay tahay in markaa daatadii la dirayo so marka waxaan rabnaa inaa validation sameyno so validation waa soo aragteen so right now qaybtan oo rangiga iyo columnka waa sida leedi karaa we don't need like that, just we need these inputs. Okay, let's start with them. marka required un baan dhihi doonaa so required kan already marka wuxuu sameyn doonaa waxbuu soo kordhinayaa ama sidii quruxda badneed oo bootstrap u sameynayay ayuu u sameyn doonaa. So meel walba markaa input walba waxaa siin doontaa requiredka inuu soo qaadanay requiredka unbaa siinaysaa like that. markaa requiredka wuxuu markaa siinayaa in markaa form validation uu sameeyo oo markaa sidaan sameysid wuxuu ku dhihi doonaa waa inaa field sameysaa oo aa buuxisaa. Okay, markii sidaa laga soo todo waxaad sameyn kartaa class oo loo yaqaano is valid oo markii uu saxan yahay oo markaasi la sameyn doono sax in la saaro. Okay, requiredka bixinayna. Okay, sorry waa formka labelka kaliya waa inputka dabcan. So input marka class wuxuu wataa is valid ah, so is valid oo ujeeda waxaa weeyaan sax ayuu saarayaa. sidoo kale waxaa jira is invalid form waxaa siinaysaa inputka. Okay, sida caadiga sida requiredka kale waxaa jira is invalid, waxaa jira waxa loo yaqaano is invalid. is invalidna sidaana sameeyaa oo wuxuu ka dhigaa yani waxaan inay khaldan yihiin oo aad lagaa doonaya inaad saxdo ama wax saxna aad meesha jiriso. Okay, so you can do it in javascript just adoo dhahaya jalasasuder haddii meesha eber ay tahay hadduu qofka tiro hebel uusan qorayn just something like that. Okay, so form validationka caadi aad ayaan ugu soo qaadanay dhanka iyo javascript. So just marka jalasta sida caadi jalasta loogu diri jiray oo dot jalas list dot add ayaa u diraysaa that's it. marka uuna kuu shaqeyn doonaa just haddaa meelaha kale kusii dayno like here intana aan gelino is valid. Okay, good. So ujeedaan sidatan ayaa markaa la edhisi doonaa. Okay, marka arrintaana waa arrin muhiima oo ku khuseysa dhanka validationka oo hadhowna aad sameyn karaysid in markaasi aad hadhow dot class list aad javascript soo dhigi jirtid si dynamically ah. Okay, waxaa jira marka la yaqaano form input group aa jiro input groupkan let me see input groupkan wuxuu u dhaqmayaa ama u sameysmaa sidatan oo kale. Let me play this yarada leedaya. Okay, input group sidatan ayuu sameysmaa so aynu sameyna marka insha allah. so waxaan sameynaynaa input group, waxaan leenahay input dash group. so tusaale waxaa gelisay label labelka waxaa ku qortay like dollar oo kale dollar kadib waxaa qorta button. Okay, waxyaalaha muhiimsan waxaa button waxaa dhahday class ptn ama input oo kale ama input xitaa input oo number ah asaa inta badan lagu fahmi karaya. waxaan leenahay number good kadib waxaa timid halkan hoose waxaa dhahday label kale ama diffita diffkan wuxuu noqonayaa marka textia oo marka input groupka. Okay, waxaan leedahay input group dash text. Okay, input group dash text tusaale marka dollarka wuxuu qaadanayaa waa 00.00 uu qaadanayaa. so xitaa waxaa ka hormari kartaa muxuu ahaye text kale oo calaamad dollarka camal. so marka labadan waxay noqonayaa markaa text groupka kula noqon lahaa kan. Okay, si caadi ah aad kuu tuso waa kana sidatan weeyaan. Okay, wuxuu group la noqonayaa kan inputka ayuu la noqonayaa oo isku dhadayaa saa ujeedaan. Okay, okay, like haddii aan dhahno pg pagina primary. Okay, so ujeed pagina primary aa laga dhiday dhammaan waa ka wada dhiday laakiin berisit groupka jeeda soo. Okay, inta imaanaa text dabcan
PG primary you see waxaa laga dhigay primary waxaa dhihi jiraa text white good marka sidatan ayuu markaa sameyn doonaa wuxuu ka dhigi doonaa group ayuu ka dhigi doonaa sidoo kale buttons ayaa markaa waxaa sameyn jirtaa inaad group aa siiso waxaa dhihi jirtaa buttono badan oo qortay tusaale waxaa dhihi jirtaa sidoo kale buttonka waxaa wadataa waxaa sameyn jirtaa buttonka PTN outline wax loo yaqaana sameyn jirtaa wax yar dib aynu ka qaadanayna hadartana waa sameyn jirnaa PTN outline ayaa jiro oo hadhow aad markaa sii jiraysid keliya stroke okay PTN outline colorkaa sheegaysaa primary you see ujeeda waxaa siinaysaa markaa stroke oo hadhow markaa saan yeeshid wuxuu qaadanaya hover waxuu markaasi noqon doonaa background markaasi dabcan primary iyo qoraal cadaan ah okay that's it right now margin top 3 good okay so groups waxaa haystaa markaa buttono saan u badan oo kale laakiin haddii aan kala duduuno waxaan leenahay success waxaan leenahay error waxaan leenahay yellow error success okay afartoo soo celiyo keliya haddana ama danger iyo dhammaan waa qori karta haddii aad doonaysid danger okay good afarta xitaa waa nagu filan tahay okay waxaan sameynaa marka intaana marka waxaan leenahay afartan ayaa waxaan leenaha aynu kadhigna hal mar button ayuu ku qoraynaa diff ayaa ku qornay sorry okay waxaan leenaha marka input dash group ujeeda waa laisku dhejinayaa okay tan waxaa ku dhaca waa fiirinaynaa 1 2 3 kan saddexaad waa isu dhejinayaa okay ujeeda waxaa laga dhigaa marka group okay inta badan waxaa fiican hadda inay isku color noqdaan maadaama group aad ka dhigtay hal xabo unbaa koobiyeynaa okay good so ujeeda group uu noqonayaa sidatan camal ayuu group u noqonayaa so input group marka sidan ayaa loo yaqaanaa so input groupka buttons iyadana sidaana loo sameeya haddii aa markaa sidaan u kala aragtay waa doonaysa sida loo sameeyo sidaana kale loo sameeya haddii marka background aa siisidna dabcan wuxuu ku noqon doonaa mid markaa aad iyo aad qurux badan oo wuxuu noqon doonaa mid hoverkiisa caadi u qaato okay ujeeda sidaas ayuu noqon doonaa ayuu baxarjina cashirka maanta inaad ka hesheen halkaas ayuu ku sumi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu